jarmaado boqole galab carrow fiidgud iyo guure waxay ka midaysan yihiin socodka balse waxay ku kala duwan yihiin saacadda xagaaf ama raf laami qardajeex iyo wada lugeed intaba waa socodna mariyay xilliyada inoo dhigan ama inoo tirsan waxay kala yihiin gu iyo xagaa dayr iyo diraac xilliga aan sadcaalayno ama aan safrayno waa kaldambeed diraaceed waa bisha ugu kulul ee cirka curashada laga eego waa xilliga ay dhacdo in xoolo meel ka soo arooray markay cabbaan in ceelkii waddo kale looga fuliyo intuu cirku ka curto hilaadna lagu shawro kulka bishan waa markay indheergaradku dhahaan fool aan kululayn laguma dhalo markay cirka jeedaaliyaan bal malee haddana waa bisha ay xooluhu biyaha cabbidooda yareeyaan iyagoo u hanqaltaagaya halkuu cirku ka hilaaco ama udgoonka saxansaxada uu sankoodu u sheego dhurdaa dhagaha iyo indhaha naga galay isagoo biyo naga raadinaya haddana waa meel indhuhu aysan daawashada marna ka daalaynin oo anaa hadda ka hor sahan 7 maalmood qaatay ku tegey dhegihiinna maan maqashiyo meesha aan foolka ku hayno iyo bandarka aan ka baxnay intaba halka aan ka tagnay waa magaalada Nairobi caasimadda u ah dalka Kenya halka aan ku jeednana 500 oo dhudhun ama kiiloomitir in yar baa ka dhiman inta ay u jirto magaaladan aanu ka baxayno geelu kunbuu madaxa la galay awrta ku jirta enrigaha ka dhashana waxaa ka wada hadlay labada dawladood ee kala ah Kenya iyo Pakistan in badanna waxaa laga wada ashkatoonayay ama laga wada xaajoonayay sidii ay geelan mar qura uga dhex doobi lahayd hindisaha waxaa iska lahaa Xaaji Bashiir Cali Diiriye oo ah yadlaha geelan kana tirsan ururka geela ee dalka Kenya ka diiwaan gashan gudoomiye ku-xigeenka ka ah haddana isteerinka u haya birtan aanu saaranahay arigu waa 700 oo neef looduna waa 500 oo neef mulkiiluhuna waa Xaaji Bashiir dhanka kale waxa uu ka mid yahay ganacsatada ugu maalqabeysan dalkan geelu muxuu kaga duwan yahay xoolaha kale waa magaca ama ciwaanka barnaamijkan diintu maxay ka tiri nabigeena maxamed muxuu daawo u doontay geela dhakhaatiirta dunidu caanihiisa iyo cadkiisa sun iyo daawo midkeebay ku qayaxeen weydiimahaas iyo kuwa kale jawaabahooda waxaad ka helaysaan oo idiin sida barnaamijkan qaybtani waa midii koobaad baa mahadsan oo nabad nagu gaarsiiyay halkii yoolka yagu ahaa balse halkan bay quruxda daawashada barnaamijku ka bilaabanaysaa dad kasta oo dunida ku nool waxay leeyihiin dhaqan u gaar ah oo sooyaalka ugu dhigan dal kasta dadkiisu waxay leeyihiin af iyo diin ay koolkooliyaan ubadkoodana ay baraan waxaan marag u haystaa diinta dunida ugu miisaanka iyo macnaha badan inay tahay midda guulle ina siiyey ee furqaan nin dhintay iyo mid dheer buu beenawaasku markhaati gashadaa mid kale masaajidna dhagax dhigo madan la markhaati dhigo hilaacu biyihiisu caddaystaa armay intaba ka habboontaa inaan ku dhaho onkodow dhac oo xeeshaa dhac dulweynihii afrikiyo hadda dhunta xamar joogto ama aad dhaqaalaha dartii dhulal carbeed aaday midda loo dhammaadiyo haddaad yurub u sii dhaaftay dhanka kale dharmaagiyo turkiyo dhabarka raashiine dhambiicii amrikiyo haddaad dheelka la ciyaarto dhan walboodu dhooftaba ogow dhaqanku waa kiiye daawadayaal saad u jeedaan waxaanu maraynaa xagaaf ama raf laamigii dhiibsanaa waanu ka degnay oo goorahanba waxaanu maraynay rafkan geeliina haddeer siduu Xaaji Bashiir sheegay uu noo sheegay saa uma fogo u dhow yahay waxaanu ku beeganahay kalkiisii baa maanta ahaayo maanta cabaya marka waxaa laga yaabaa isagoo ceelkii jooga oo darkii jooga inaan u tagno idinkuna de saad daawanaysaa barnaamijka waad ku mahadsan tihiin dhowr su'aalood baan rabaa inaan adeer weydiiyo waxaa la yidhi waqtigu hadduu dheeraado oo jidku kugu dheeraado sheeka lagu gaagaabsadaade si moogtay noo soo koro waan ku faraxsanahay horta barnaamijka saad nogala qayb qaadatay iyo sidaad noo soo dhaweysay iyo meeshan aadna keentay wanaagsan haddii badan iyo meesha kasii wanaagsan aad nagu sii wado maasha allah waxaan jeclaa su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinayo geela markii aad aasaasiisay yaad bilaabaysay intee sanaa laga joogaa geela hashii ugu horreysay waxaan iibsaday 94 laakiin
waqtiga 1994 laakiin waqtiga aan culeyska geliyey geela maaragtay waqti siiyey waa 2005 wixii ka dambeeyay ha geela hadda aan ku socono hadda tiradiisa inoo sheegto guud ahaan waa ilaa 720 weeye soo ma sha Allah markii aad bilaabaysay caqabadihii alla kulantay horta geela waxaan u bilaabay anigu sideedaba xoolaha nool baan iska jeclaa meeq soo kortay markii hore maya yaraanteydii hore oo aan aad u garanaynin reemii baanu ahayn ilaa 15 jirkeyga ayaan ku gaaray markii dambe intii dambe noloshaydii magaalada u badnayd khaas ahaan intaa miyiga aan joogayna geel waa shaqaas kumaanan lahayn marka laakiin xoolaha nool baan iska jeclaa 2003 ayaan geel iibsaday sodomeeye anigoo ugu talagalay caruurtayda waqtiyada weekendka iyo markii iskuulka la xira iyo inay bal maaragtay miyiga tagaan oo geela soo arkaan oo caana ka cabaan oo wax ka kororsadaan geelii markii 2005 la gaaray ayaa dadkii ii hayay baan dhib badan kala kulmay geelina dayac badan ayaan kala kulmay marka wuxuu joogay meesha la yidhaha Namanga marka waxaan soo saanstay meel yidhaha Bangal buu joogay markii hore marka waxaan soo saansaday Namanga oo xuduudka Tanzania ku taalla oo markaa geelina ma joogin dadka meesha degan geel ma dhaqanaynin meeshana cunto geela wanaagsan bay leedahay dabeetana shaqaalaan u diro geeli baa la soo kaxeeyey Namanga la keenay 2005 abaar xunna way ahayd marka inamadii geeli la jiray baa waxaan u diri jiray xoogaa abiil ahoo geela dana iyo ugu iibiyaan iyo kharashkooda iyo geed dana la yidhaho geela uu jecel yahay geel caana lahoo hadduu cuno biyo hataa ma rabo geela biyihii baad buu u noqonaya aadna ugu naaxa marka guryaha daaradahoodii waxaasuu ku yaalaayo marka waxaan ku idhi dadka maaragtay wax iska siiya oo geelaha ha daaqo marka nasiib wanaag markaan meesha tagnayba dadkii geelay jeclaayeenoo lacagay naga qaataan iska daaya iyagaabo kooranay ku soo celi hadda waan fiirsanayaa macnaha wuxuu uga jeedaa geelaas markuu meesha daaqayo inuu isagu daawado daawado marka geelii markaan adigu laba weeg meelaha joogay inamadii yidhaaheen adeereedhe kharashka noo soo deli jirtay iska daa lix halaad baa ka irmaanaayo waxay yidhahdeen 5 litiro caanay waxbaan ka iibinaayo kharashkii iyo wixii uu noogu filan yahay iska daa kharash waxbaa noo soo diri marka annagu halkii taagan waxaa ka dhalay 12 markaasay inamadii u yidhahdeen adeer caanihii waan iibinaayo dukaanka hebel baan wax ku ururinaa ishii markay dhamaatano mid bay yidhaaheen bal hadda dukaankii la xisaabtano dukaankii lacag aduu u dhiganta $300 ayaan ugu tegey lacag Kenya oo u dhiganta $300 hami baa igalayo geel 4 ahaa oo 2094 aan ku darsaday nin xaaji maxamed khayr la yidhaaho reesiyolowa ayaan la hadlo ku yidhi xaaji geelayga muxuu maraya markaasuu yidhi 12 buu maraya markaasaan ku yidhi adeer ii soo dir adeer ii soo dir markaasuu ii soo diray geelii oo shaqaalihii ugu soo dhiibay waa lasoo lugeysiiyey ilaa Sielo ilaa Nairobi ilaa Namanga la keenay geeli loo keenayo geelii wuu ii batay markaasaan haddana dirsaday haddana 30 neef oo kale aan soo iibiyaan kusoo daray geelii caanahana waaga keligay baa Nairobi ka iibin jirayo keligay baa keeni jiray marka xaafaddaa lagu iibin jiro xaafadda marka saf baa loo soo geli jiray marka waxaan gaarsiiyey geelii markii kharash kasta laga jaro inaan ka helo lacag ilaa $10,000 $12,000 caanihiisii bishii inaan ka sameeyo macnaha kuu ii seef garowdo marka kharashaadkiisii wax walba laga jaro kharashaadka beeraha meelaha macnaha uu daaqo iyo wax walba laga jaro geeli marka uu batay marka wuxuu gaaray waqtigaa hadda aan kuu sheegayo 600 iyo xoogaa buu ahaa
marka geelii baan meeshii dhulkii Masay baa Soomaalidu ku soo badato dhulkii waa xoogaa dhib ka yimaadeenoo waan ka soo guuray waxaan ku soo noqday Bangal baan ku soo noqday dabeetana Bangal waxaan kala kulmay dhib fara badan oo dee dhib miyiga xoolihii oo lumaya markii de Masay aan joognay beeray iskaga jiray geelii marka uu lumayaa waa la xadayaa uu baadiyeystay dhib badan buu yeeshay marka aduu geelii marka geel badan baan ka iibiyey si aan u dhimo maadaama khataro badan ay soo galaan yareeyahaa oo wixii hore ahay oo dhan baan iibiyey geeli kale wax ka iibiyey aduu geelii waan yareeyey nacfigiisiina wuu yaraaday oo markaan dhulka nimid dhul abaaroo dhib badan buu noqdayo marka waxba aan kaa soo gelin kharash inaan u kharash gareyn markaasaan hadda iminka dhulkanaan usoo wareegoon sanad imanka jooga geel intaasaan la soo maray waxyaabaha iga soo maray caano iibintoo kale waxaa ka mid ah xaaskaygaa iibin jirtay caanaha oo gurigii ku iibin jirtay marka islaantaydu dhalasho ahaan waxay ka soo jeedaa Hargeysa marka dumarkii caanaha ka iibsanayay jaarka ahaa ayaa waxay u qaateen islaan iska caanolay oo caanaha uun gurigan keento oo reerkay wax isu yihiin oo reerka ahayn markaase waxay ku yidhahaan naheedhe dee caano wanaagsan baad keentaaye dee caanahan amaad noo weydaa marka dambe oo naga joojisaayo oo reerkan maxaa isu tihiin markaasay ay tiri geelin annagaa le dee gurigana anaaba lewa markaasay ku yidhi naheedhe miyaad waalatay adoo gurigan le maxaa caanalay kaa dhigay caanalay kaa dhigay dhowr dumara waa ku yidhi oo dee xaggeennina caanaleyd waxaa loo yaqaanay dad aad u tacbaan oo kabaha dhammaaday la siiyo oo reerka raashin ka soo haro la siiyo markaas aantii waxay u aragtay xoogaa in maaragtay ciladii jirto markaasay weydiiso ugu tiri reedhe dadkiinan halkan iyo koonfurta iyo waxdiga caanaha maceeb baa in la iibiyo markaasaan ku yidhi maya ceeb maaha hadda waa shaqo dadka kuwa naagayla maxaa caanalay kaa dhigay waxaan arkay markaas aantii inay ka qajilaysaba caanihii iibintooda markaasaan ku yidhi Natuso iyo Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya waragin Uhuru baa caanaleya caanaha waa business wax dhibaato ma laha iska celina wax isku tiraha madaxweynaha wadanka waa caanaley markaas ku dhiiratay imsaan geel raacis adiga 45 sano ka soo qaatay 45 sano raacis imsa jirtaa 52 jir baa tahay haye waasay ma sha Allah muxuu maxaad ka faa'iiday raacis geel niyow intaan geela raacayay horta dhaqan iyo hidda oo odayaasha hore ku soo dhaqan jireen uma annagana daba galna akhris ma ana aadin iskuul iyo waxba ma ana gelin akhris xaalada waxbarasho ma ana aadin marka inta hadda aan jiro oo sanadkii aan ku sheegay iyo hadda dhaxdooda faa'iidada aan ku haysto waxa weeye intaan boqoday isbitaal ma ana tagin waliga dhakhtar ma aadin ma sha Allah yeela waxaan iska cabnaa kaadidiisa هذه صغار بعيب يغن لعب يعين ما هاي ترتاح هذه waxay tartaa waa lagu qarasta kaga baxa dadka waxay uurkaadan ku jiro idina ka iimaanaya marka muddo toddobaad la cabaya si loo cabiya darina cab waxaad cabaysaa subaxdii horaad glass yaad ka cabaysaa hal koob ah bakeeriga shaah lagu cabo mugis oo kale kan cabaya yaad cabaysaa marka intaad cabtid marka waxoogaa biyaha ka daba cabaysaa biyaha waad ordaysaa marka biyaha cabay intee leeyahay marka biyaha waxa bakeeri intaas waliba bakeeri madana waa ka yar yihiin waad ordaysaa marka waad soo wareeganaysaa ilaa intee wareegay leeg inta moorada xarada inta oo wareegeeda imisa saac kale wareegay hadda 2 saacadood ama 1 saacad gudaheeda aad wareegaysaa inta waxaan ugu horeeyaa afka gelinaya noqonaysa iyadoo kaadu oo cunto kale afka aan saarin yaa iyada cabaysaa iyada markaad cabtid marka waad rounta laba waad soo wareegaysaa waa ordaysaa
markaad xogaa aad la orodid gadaal baa waxa nijaasa ku soo qabanaysa nijaasad caloosha ku soconaysa marka ilaa hadana 10 saac oo kale marka waad baxaysaa waad soconaysaa ana ma cabayo caano waad cabaysaa laakiin caanaha ma badinaysid caanaha iyo biyaha darsanaysaa biyaha darsanaa waxaan ku ori halkan seexataan halkan harsataan caanaha geed ku nooshnactaan yaan ku nool lahaa wax kale afka ma saartaan may roobku markuu wax ka gashaan banaankan iska seexanaa roobku daay hadda roobkiina dhaafay bari dhaweyda ay gubi dhawey banaankan iska seexanayni roobki intii leeka roobki haa waad sigateen maya ma ana maqlayni waxa qabowgaasi waxaas ma ana maqlayni ma ana dareemin wani waayo ma ana dareemin macaag baad noqotay mise adkaysi kala ma kolkol jirkeena ma kolaba ya adkaysiga caanaha geelawey caanaha geelawey marka marada wandin kuleel baa ka baxay naga baxay meesha ku jirta marka ka caansan noqonaysa way kulushahay way kaaraysaa oo meesha roob ma gaadhayo dad baa igu meesha hadaad saa u seexato waxay noqonaysaa meel yar kale oo gabalo meel gabalo qalalan bay noqonaysaa dhinaca kuleelka bini'aadanka qolada ka soo baxaa moogta marka kuleelkaas bini'aadanka meesha way huraysaa caanihiisa iyo cadkiisa kee daawo badan tahay caanihiisa iyo cadkiisa wallaahi niyahow labadaba waa daawo laakiin cadkiisa hilib buu ka bixiyaa leeyahay hilib buu ka bixiyaa marka hilibkaas ka bixinaya ma ogi laakiin caanaha ka daawo badan caanaha waxa yeelaysaa geed walba isku soo daraya marka laga tago caafimaadka iyo caanihiisa la cabiyo cadka marka laga tago waxa kale uu dadka u taraa geela hada waa la iibsadaa waa la gataa lacag uu soo saaraa marka lacagtaas uu soo saaro yaradka ma taqaana yarad waa qaana yarad anaga waxaan u naqaanaa kan gabdhaha laga bixiyo marka geela lama bixiyo wala geela hanuun sida badan geel jirta ma quurta nugulka laga bixiyaa lo'da iyo ariga iyo lo'da ka bixsanayno lo'dan ka bixina waa ko nugulka ka geela ku qurux badan yahay laakiin gabadh baad ka qaadatay gabadh ka guursatay waa la xididay wixii la sharfayo cidii la sharfayo geel baa la siin jiray bariyahan daba nugul baa la siiyaa geeliga qaali buu noqday looma quurahayo sababta 50,000 60,000 100,000 neefka sii socda ritiga weynaa waa 100,000 oo lacag marka waxaad leedahay caanihiisa iyo cadkiisa ma kala dhacaan laakiin caanihiisa yaa sii sarray waxaan uga gudbayaa halka aan uga golleeyahay haddii aan markhaati idiin qabsado daawadayaal weydiinta warcelinteeda miyaad igagama suugaysaan runta dhaqanka milgaha iyo golaha weyn ee Soomaalidu gaarka u leedahay mid la baratami kara malaha maydaan arkine miyaad maqasheen sidaas si ka dhigan xoolaha dunida ku dhaqan lama sheegin meesiga muuqaalkan quseeyo mid la baratami kara ama u babacdhigi kara dhegteenu may maqal ishana haba sheegin umana fadhino goortan inaan tibaax ka maqallo arrinka geelu markii uu boqol gaadho kadin baa la yiraahdaa markuu boqol gaadhana kadinman baa la yiraahdaa fardaha markay boqol gaadhaan wagan baa la yiraahdaa loodu markay boqol gaadho fadhi baa la dhahaa arigu markii uu boqol gaadho tiraa la dhahaa ama xubin baa la dhahaa waxaan joogaa ama aan ku dhex jiraa kadin geela waa 100 neef oo geelan soo aadnaysaan hore branch ku daawateen waa 720 neef qaybtan hadda la joogo waa qaybta horweynka waa goor gelin damba oo labadii duhurnimo malay saacad inay tahay waa goor gelin damba oo labadii duhurnimo way haddeed geelu haddu dareerayaa oo fulayaa halkan waa darkii uu darduway wuxuu aadayaa meeshuu de cawska ka daaqi jiray waa xilli kal dambeed midda kale kal dambeed weeye qorraxdu aad bay kulushahay hashani haddeer chu hashan waa rimay way goojinaysaa midabkeeduna waa caddaan may xiga geela midabadiisu
haddii aan idiin sheego inta anigu aan ka galowsanahay ama aan ka aqaano midabada geelu waa 4 waa caddaan iyo madow iyo guduud iyo goodir oo isagu midabka ugu yara geela xiriyaha qaybaha kale waan tegi doonaa geelan darkaan kula kulanay ama meeshuu ka cabo waa war ama waa balle barnaamijkan ku tusi doonaa ama waan aadi doonaa xagga balliga geelu haddana uu cabbe wuu rakaata wuu fulayaa markan oo kale uu fulayo waxaa lagu heesi jiray kaaga naga fulay aan fogaanay foori gaban iyo fataxan fara geelu xoolaha kale ay Soomaalidu dhaqato wuxuu kaga duwan yahay dadku way ka jecel yihiin wuu ka gagsi badan yahay gagsi maxaa laga wadaa gagsi waxaa la dhahaa looda ma qaadi karto 20 iyo dhowr casho ma qaadi karto wuu ka adkaysi badan yahay asoo macnaha waxaan ka wadaa biyaha intaas macnaha wuxuu moogan karaa 20 ilaa 7 casho wuu moogan karaa ilaa bil ugu dhawaa ilaa bil ku dhawaa 30 casho wuu moogan karaa haye mideeda kale hatta baahida nafteedu oo gagsi badan yahay haye ma garanaysaa waqtiga xoolaha kale ay harayaan asaga waa lagu noolaadaa xaqiis haye oo geedintu iska soo ruugo ma garanaysaa ilmi caan u keenaya haye iyo dadkiiba haye qofkii kaajo inta dushka saarta ku qaadan kartaa qofkii jajabay wax ku dhaca bismillaah waad ku qaadanaysaa waad ku qaadanaysaa xoolaha kale uma qaadi karmaa dibida laguma qaadi karo haye maxay la oon bay laga gsaneen kaajo laga gsaneen marka waa lagu rafaadaya haye laakiin midka geela Soomaa bismillaah geela wuxuu uga gsi badan yahay aad iyo aad uga gsi badan yahay xoolaha kale haye marka sidaasan anagu macnaha aan ugu ticnaayo u jecelnahay macnaha saasaan raacina qaayib qoys lihijeeru qunu dhalo oo nirgaha qubaqula dubadka iyo qiiqu dami waa sodonlaha fulay ku facma ihide fadhiyo reen oo facaa sugo xayloy guud weyn xidigoo dhacay xilma kuu yimid oo ma lagu xigay oo ma la xil baxay anoo suub iyo soobir maalaa seexan waaye sabaanadii dhacay sacnin maaliyo sabool adhi yari sagaaraystuhu see u nool yahay buulin jiifsaday oo basari helay oo bustahu waday baadi weeye rag barbaariyo burmad baad heli meelka ku xarbiyey oo xinjiri taal xayaad ololaay xagaagii tegay xoorkan kaa dhamay xaalad wacan iyo xiise igu reeb cana saxarra leh misna lagu saxan waa na siin jiray oo nasabi jiray gurgur saabliyo haangadaan weyn la gurguurtow guuyo waa adhi madaxa meel ka sarraysa oo la salaaxo ama la taabtaa ma jirto qur-aanka kariimka ah iyo xadiista rasuulkeenna nabadgelya naxariisi guudkiisa ha noqotee maxay ka yidhaahdeen geela sheekh cabdirasaaq cismaan faarax ha inoo sheego oo sharaxaad qoto dheer geela wuxuu kaga duwan yahay xayawaanka kale waxyaabo fara badan oo lagu sheegay qur-aanka kariimka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabahaas waxaa ka mid a marka koobaad ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat waa makaanu ictibaar weeye dadkii baa laleeyahay miyaanay ku waana qaadanayn ku fiiro qaadanayn sida ilaahay geela u abuuray taas marka waa waana qaadasho baa ilaahay uu ku tilmaamay mar kale ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay maalinta qiyaamada ay dhacdo oo dhibaato badan ay dhacdo dadka maadaama geela ay aada u jeclaayeen waxa ugu horeeya la dayacayo inuu geela ka mid yahay waidal cishaaru cudilat yacni geeli 10 bilood ahaa oo dhalayay hashi markay 10 bilood tahay sidkeedii baa dhow iyo dhalmadeedii baa la dayacayaa marka waxay ku tusaysaa inay tahay xitaa calaamadii qiyaamada la sheegayay in geeli xitaa lagu soo daray wuxuu kaloo kaga duwan yahay geela waa qurux badan yahay ilaahi subxaana wa taala wuxuu leeyahay walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun qurux baa idinku sugnaatay markaad gelinka hore daaq geynaysaan oo foofinaysaan iyo galabtii markaad soo caraabinaysaan geel de qofkii raaci baa garanaya xilli barwaaqa ah joogo oo baarqabkii uu ku jiro oo marka subaxiina uu foofayo iyo marka la soo caraabinayaba waa qurux baa ku sugan axaadiista rasuulka haddaynu tilmaano calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenna xadiis badan buu geela ku tilmaamay xadiista waxaa ka mid ah in ay caanihiisu ay daawo yihiin iyo kaadidiisa labadaba oo xayawaanka kale kaadidooduna daawo ma aha yacni caanahoodana qaarkood waaba in lagu jiradaaba dhici karta qaarkood iyo hilibkooda in lagu jirado oo lo-doo kale rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hilibkeeda inuu xanuun yahay buu ku tilmaamay laakiin geela yacni caanihiisa iyo hilibkiisa iyo kaadidiisa intaba waa daawo mar hadday kaadidiisu daawo tahay nijaaso ma aha ilaahi subxaana wa tacaala wax maaragtay nijaaso ah daawo inuu gama dhigin marka waxa weeyaan kaadidiisu geela waa daahir weeyaan oo nijaaso ma aha waana laysku daaweeyaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaar ka mid intay xanuunsadeen baa wuxuu yidhi geelaas u taga caanihiisa iyo kaadidiisa isku darsado cabba wayna ku caafimaadeen mar kale rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam yacni goobta geela darkiisa inaan lagu tukan yani ha ku tukanina baa la yidhi taasna wuu kaga duwan yahay xayawaanka kale
oo goobtiisa iyo darka geela dee laguma tukanayo meel ka baxsan baa lagu tukanaya wuxuu kaga duwan yahay ariga iyo lo-da iyo waxa kale la midka ah in laga weysaysto hilibkiisa oo rasuulku wuxuu alayhi salaatu salaam ka weysaysta hilibka geela ka weysaysta laakiin ariga iyo lo-da iyo kuwaas lagama weysaysanayo marka waa khasaa'ista waxyaabaha uu khaaska leeyahay kaga duwan yahay dhaqanka Soomaalida waa taqaanaa hadda moogtay waxaa jira shirar adduunka looga hadlo xoolaha asaas waxaa jira urur ka dhisan Kenya asaas ka qayb gashaa shirarkaas oo waa ka qayb galaa maahe ururka geela Kenya kama Belt Association of Kenya ana madaxweyne ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka haye shirarka caalamka geela waan tagaa waxaan ka qaban qaabiyaa haye ma sha Allah marka waxay ugu darneed markaan Dubai tagay geela sheekh Dubai geeliisa sheekh Maxamed Rashid ayaan u booqasho tagay iyo laboratoryga geela lagu dhaqaaleeyo markaasaan ku yiri 4 su'aalood baan la tagay oo laabkaan u baahnaa inuu iga jawaabo marka anagu Soomaalidu waxa noo dhaqanay geelu waraaga waa la soo sheegaa geel waa wanaagsan yahay aad ugu fiirsado waxyaalaha daawada ma wuxuu yahay waa la soo sheegaa la iskama iibiyo markaasaa lagu yiri 4 su'aalood okay waayo waxaan u diraynaynaa waaxda qiimeyntaan u diraynaay beri kaalay marka paymentiga ayaan ku sheegaynaa su'aalaha jawaab lacagta aad bixinaysid jawaabi baa lagu yiri moogtay soo waxaad isku keentaa berri ama saad dambe lacag baa moogtay su'aalihi baa waa laga qaaday waxa la yiri okay waxaan ku charge gareynaynaa berri ku sheegaynaa de markaasay fajcisho ku noqotay anuu geelo waxun baan isu sheegi jirnay de waa maxay ninkan geela leeyahay lacag baan kaa qaadaya jawaabta iga iibinay markaasoo naag ingiriis oo caddaan ay haydo markaasaan ku yidhi dee waa sidee anagu geel jirta waxaan iskama iibine markaasay ku tiri dee anigu waxaan wax usoo baranay inaan wax ku cuno waxaan bartay marka anigu free kugu siin kari maayo free wax kumaan soo baran wax bilaash laguma siinayo iska bixi markaasay weydiisay oo tiri geelaadu waa imsaayo marka geelaygu marka kun buu ahaa markaasaan isqaadqaado aan ku iri dee nin kula mid aba ma jiro oo ma aragtay islaanta ka yaabi ninkun geela male markaasaan ku iri geelayga waa kun markaasay aan ku iri geela sheekhu waa imisa sheekh Rashid markaasay igu tiri imanka waa 3,000 waxa meesha xaladan joogo laakiin Pakistan baa imanka geel laga soo wadaa de markaasaan afka qabsaday wallahi cidda buu isku oran kun baan leeyahay Soomaalidu u sheeg baan siin hal warbixin iyo ka badan toona miyaa lagu koobi karaa geela ilaahay oo garasho xumaha nagu cadaabin ee xanaha nagaga tegin dunidu waa 3 saac miyaad maqasheen armay ka dagi weydaa haddaan ku garwaaqsiiyo saacad la soo dhaafiyo mid la joogiyo mid aan wali la gaadhin miyaad ogtihiin guyaal tagay inay dunida qaarkeed ka faani jirtay caanaha geela iyo cadkiisa oo ay u yaqaaneen cuntada muslimiintu ama islaamku gaarka u leeyahay balse hadda ay guclo orod ugu jiraan sidii ay u yeelan lahaayeen miyaad ogtihiin inay ku macneeyeen caanihiisa dahabkii caddaa tanoo kale midkale maxaa tiraa filcad baan ana filcad في العضها حقا بلغة بنوجد شراء لكن وسوق تمين هروك أسوي بحننا يا ترى مكسي قاسية مسيكة بنكرة أما جابية أنا كمان شو كرواتش بسم الله أريد أرجع وكفوا قاعد أقول توين يقول لنا توين يقول لنا شو أقول لنا سما وطبعا دي براد يا روح حاجة دكتور عبد القادر حسين ورسمي oo kamid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee wax badan ka qoray caadka iyo caanaha geela haynoo sharaxo oo si qoto dheer haynoogu faahfaahiyo caanaha geela faa'iidooyin fara badan leeyihiin faa'iidada guud horta caanaha xoolaha ay leeyihiin waxa iyagu u dheer waxay leeyihiin wax u eg insulinto kale waxaan leeyahay insulinta oo hormone jirkeena waxyaabo sameeya kamid ah oo sokorta hoos u rida
marka caanaha geela taas waxay ka dhigaysaa inay daawo iyo ka hortagba u noqon karaan sokorta cudurka sokorta waxaa kaloo intaa u dheer caanaha geela marka la dhanaaniyo marka dhanaan laga dhigo oo maxaa la dhahaa karuurka ama suusac sida loo yaqaano laga dhigo waxay daawo u yihiin caloosha oo waxay soo nooleynayaan waxaa la yidhaahdo ecosystemkeennii caloosha microbiomihii caloosha ayay soo nooleynayaan marka lama xisaabi karo daawada ay leeyihiin sababta waxaa weeyaan caloosheenna howlo badan ay qabataa bakteeriyaha caloosheenna ku jira oo ku ilaahay nagu abuuro noogu talagalay oo symbioska aan ku wada noolnahay howl fara badan ayay noo qabtaan marka caanihii geela markay dhanaanka yihiin waxay noqonayaan waxaa la yidhaahdo prebiotic means waxay nafaqeynayaan oo ay korinayaan bakteeriyihii ficnaa oo caloosheenna ku nool taa marka waxay yeelanaysaa wejiyo fara badan oo xagga caafimaadka jirkeenna ah ilaa xagga caafimaadka maskaxda xataa sidii serotonin fara badan ay sameynaysaa waxay qayb ka qaadanayaan bakteeriyahaas ee burburinta cuntooyinka aan cunayno sidii maaragtay seluloosada iyo cagaarkii waxaa markaa cunno badanaa seluloosada jirkeena ma burburin karo laakiin colonka markay tagaan bakteeriyaha jirkeena ku jira ayaa aada u shiida baabi'inaya enzymes ayaga sameynayaan marka lama soo xisaabin karo markii aan ka tagno nafaqada jirka ay u leeyihiin intaasoo kaloo faa'iida oo xagga daawada ah ayaa caanaha geela leeyihiin hilibkiisa de waa cunto waa nafaqo waa protein waa vitamino badan waa vitamin B12 inkastoo uu kuleelka haddii aada loogu badiyo dabka vitamino badan qaarkood ka dhimanayaan laakiin waa iron waa waxyaabo fara badan ku jira hilibka oo sidii markaan protein ka soo kacno oo faa'iidooyinka faraha badan oo jirkeena u yeelan karaan hilibka uu la wadaago baruurtiisa markaad soo qaado geela baruurtiisa wuxuu badinayaa waxaan la yidhahda HDL qofka baruurta geela cuno ama kurus geela cuno oo aad ka qaado maaragtay profileka lipidiska ama profileka cholesterolka jirkeena markii laga qaado waxaa aada u badan waxaa kor u kacaya waxaa la yidhaahdo HDL oo ah qaybtii aan u baahnayn jirkeena in kor loo qaado oo xagga luqadda caadiga marka laga hadlayo aan cilmiga ahayn waxaa la yidhahda good cholesterolka fiican taasuu kicinaya marka taasna waxaa weye waa daafac oo waxay kaa daafacaysaa HDL-ka markay badato qaybihii kaloo maaragtay cholesterolka oo jirkaaga dhaawici lahaa ama xididada xiri lahaa ayay kaa daafacayaan marka kuruska geela iyo baruurta geela waxaa weeyaan waa very beneficial siyaabo badan researches fara badan la sameeyey waxaan ku hadlayna waa evidence based waa wax cilmi ah oo lasoo baaray hadda jaamacadda kale markaad tagto waxaad arkaysaa qofkas wuxuu ku leeyahay haddaad tagto xaafadda soomaalida qofkii tagaayo ama dhalinyarada kale markay arkaan waxay leeyihin hilib geel noo keen oo waxaad arkaysaa dadkii oo wada cunaya dadkii shalay lahaa waa muslim food annaga ma cunno oo waxaad arkaysaa waayo si cilmiyan loo soo ogaaday faa'iidooyinka uu leeyahay siday soomaalida hore ahaan jireen waa dad aada u caafimaad badan caafimaadkooda zaa'id yahay caanaha geela waad ogtahay laba karkariyo sidiisaa loo cabaa oo markii karkariska xataa vitamino badan oo ka dili lahaa kama dilin dadka caanaha geela cabo waa dad dhuudhuuban oonta xoolaha hilibka geela ku nool dad dhuudhuuban oo qurux badan oo dhaadheer oo caafimaad badan aada u caqli badan badanaa dad noocaas ayaa ka soo baxa oo soomaalideenii hore maaragtay cadi caana ahaan jiray qaabka lagu yaqaanay weeyaan xagga magta haddii aanu fiirino dee ninkii raggaha waxa weeye waa 100 halaad gabadhiina waxa weeye waa 50 halaad oo waa nisfu diyati rajul ninkii magtiisi haafkeed weeyaan iyadu tan kale haddii qofka dee nabar la gaadhsiiyo matalan laf cadaatay oo kale waxaa lagu simeeyaa waa geeli ilig haddii la rido waxaa lagu simeeyaa waa geeli qofka haddii xubnihiisa wax la gaadhsiiyo dhammaan waxaa lagu simeeyaa oo diyadaas ay noqonaysaa waa geela weeyaan marka geela aad iyo aad buu qiimo badan ugu leeyahay xagga shareecada islaamka waxay nagu tilmaameen inaanu jaahilnahay oo aan aqoonba lahayn marka waxay nagu yidhaahdaan maxaa qarnigan waa laga tegay geel in la raaco reer magaal baa tii lacag baa leedihiin guryaa leedihiin hadda maxaa idinku qasbay idinkoo laba qof oo waaweyna inaad duurka gashaan oo ardaa geel seexataan yacni waxay noo yaqaaneen dad aan waxbaba ahayn waayahay carruurtaydaanu soo noqday waxaa la yidhi waxaa hooye
ka shaqaynaysaan caruurtii jaamacaday jiraan iskuullay ku jiraan waxaa la yidhi waxaa ka shaqaynaysaan noloshiina aad buu u dhimayaa waxa waayo lixdameeyadii baa maraysaan idinku lixdameeyadii ayaa ku jirtaanoo maraysaan maaragtay saasoo kale dhaqaala u leedihiin annaga inaanu ceebowno leedha hooyadiin iyo aabbihiin ardaabay ku bakteen ama geel baa ku duntay samcad xumay nootay dad wax bartay baanu nahay marka ilaa alaankan sidii bay maaragtay noo aqoonsan yihiin wiil yahow ma guursado nimaan goray u foofayna waa inaan gumeed nimaan lahayn sidigta gooraane ganuun looma soo shuba harkii galaxa heemaa leh aroos loo gingaamiyo xarago waa ka garanooge guuyada kaleetiyo isagu wada kala gaare halkan waxaa ka fulay qayb ka mida geeli oo 100 iyo xoogaaya halkan ka fulay goortu waa goor galada halkan naga dambaysa waa webi waa webiga Adariif oo ka mid ah webiyaasha dalkani Kenya geelu Soomaalida way ka jeceshahay xoolaha kale waxa uu taray xoolaha kale ka duwan yahay inaad noo sheegtaan jecelahay aniga iyo daawadayaasha wallahi geelu Soomaalidu de waagi hore waxaa la oran jiray hebel 100 geel buu leeyahay geelisa 100 gaaray geelisa 100 gaaray haye marka waxaa la oran jiray hebel kibir buu la hoogtay oo qoraxda fariisan jiray mara ayuu halka isku siin jiray wajigu qarsan jiray haye sababtooda geelisa 100 dhaaf haye marka astaan bay waa inuu geelisu 100 gaaray mar hadduu mara hoogtay waxaa la oran jiray caru la hoogtay markii geel laga qaado ayuu ka xanuunsan jiray وعليسية ولا جيل الغادي هي إن قالوا ده وحوها لقالها كابيتال كسومالية كل حساب تنت هي إنه كوقت كان دا هبل دار دير بولي هي باليرا يلا بدار ها يمي سادة تهريبي ودوف صني هي اللي وحا روحوها وحا لو حساب تنت هي إن أنت حلولين جري أنت هاجرة قرصو بقول هلال أنت هاجرة بقول هلال يا قرصو يا قبل هبل إني هبل قرصو يا قرصو هي ninka guursayna uu ku faraxsanaan jiray abaheedna uu ku faraxsanaan jiray geel baa laga bixin jiray haye inta geel laga bixiyo ka qiimo badneed inta shilimaadka laga bixiyo inta shilimaadka laga bixiyo magaalada iyo meelaha haye ninku geel ka dhamaadayna waxa la oran jiray hebel wuu ceyrtay magaalada gal ninka hebel wuu ceyroobayo magaalo gal oo xoolaha kale xataa laga sheegi jiray waa ko haye marka magta lagu bixin jiray waxa la isku gabiyaa geel u ahaan jiray iyo fardaha geel xisaas u lahaa haye اسمعوا كيف صومر نيو قول بيها صومر صوليناتي وعلي سيدين النغن وعلي صوليناتي وعلي سيدين النغن وعلي صدين الغري وعلي سبياك أبو ديشري وعلي يضر يورورا وعلي منكو دبسوي وعلي لون ديرشي وعلي دعد واي وعلي دنبووتي والمجال وعلي مران مرايدو وعلي ميركوها وعلي يوم شعسري وعلي يوم حولي وعلي يوم مرفري حري وعلي ولا مايرو وعلي مارين تيعيل وعلي كمغنادو وعلي كوني تشريوا من جووي وعلي عيلين توقري وعلي قبل ما حني وعلي ولا ما هقري وعلي قنطالكا يالان قبينبا وعلي قارن سيحديو وعلي قوري سيغناي وعلي يوقيس مري يا حاكينا الغايست وحنا وجهه عصا daawadayaal meel kasta aad joogteen halka haynoo joogo barnaamijkii aad daawanayseen mar kale hawada intaan ku kulmi doono waxaan idin leenahay dhammaanta iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
أفرت ما تبلغ أفرت ما تبلغ وحوينا